nabad daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij ka mid ah barnaamijyadii suugaanta ahaa ee nooga barateen barnaamijka subaxan saakaha waxa marti ku ah abwaan cabdidhuux cabdi oo ka mid ah abwaanada tirada yar la ee waqtigan jooga ee suugaantii iyo dhaqankii iyo waxyaabo badan oo markaa suugaanta la tacalluqa hayaba abwaanka waraysigan oo kaliya ka qaban meene waraysiyo fara badan baynu ka qaban doonaa bal marka hore abwaan ku soo dhawow barnaamijkan aynu duubano subaxan saaka waad mahadsantahay suxufi muxsin waan dhawahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay annagana dee sharaf bay noo tahay inaanu kula kulano oo waraysiga kan aanu ka qabanno bal marka hore dad badan baa waxay isweydiinayaan abwaan cabdidhuux cabdi waa kuma ama waayo markaa abwaan cabdidhuux oo laga yaabaa in markaa ay ama suugaantaada un maqleen amaba si kaleba ay ku maqleen bal dadka waxaan doonaynaa inaad taariikh nololeedkaaga halkii aad ku dhalatay ku barbaartay in yaroo macluumaad aad ka siiso. waxaan dhashay anigu horta 1900 taariikhdu markay ahayd 1977kii dadka qaarna ay u yaqaanaan 77 dagaalkii xabashida iyo Soomaalidu markuu socday ayaan dhashay sida aabahay ii sheegay wuxuu igu oran jiray markuu igu qancinayaan xilliga dhashay goray meesha la yiraahdo dagaalku markaa meelaha uu ka socday baa dhalatay waxa ku dhashay dhulka Soomaalidu degto ee ku yaala Itoobiya haddii si kale loo dhigo loo garan og yahay gardo oo suugaanta Soomaalida hore ku jiray markaa dhulkaasaan ku dhashay xilligaasaan dhashay aad iyo aad bal waa si wanaagsan abwaan bal waxaad ka warantaa waqtiyadii kugu horreeyay ee waxa weeye suugaanta aad sugaateen aad suugaan abuuri karto ama aad alifi karto xilli ma ahayd baad u malaynaysaa suugaanta waxaan sideedaba suugaantu ma aha waxaa la odhan karaa ninka suugaanyahanka ama suugaanta fahma ama haba tiriya ama haba fahmay xilliyada uu ay ku dhalataa waa xilli uu yari anigoo yar oo maqasha raaca oo aad u yar oo maqal raaco mii jooga ayaan gabayada dadka kala tiriyeen qaban jiray oon dhageysan jiray midho ka mida iyo tudciyo ka mida waxaa jirtay waxaan u malaynayaa wax suugaan u eg maalintii igu horreysay waqti aan yaraa oon ilaa 8 jir 9 jir meelaha ahaa ayaan anigoo maqashu way dabayl raacdaa xilliga xagaagii dabayshu soo dhacdo dadka miyiga ay joogi jiray baa yaqaana ay dabayshu ka timaado hawd maqashu way dabayl raacdaa dabayshaasi raacdaa way socotaa wax dhul hawl badan anigoo maqashii la jooga oo daba socda ayuu aabahay meeliga ka soo baxay markaa waxaan leeyahay hadda eega imika isuusumi samada loo qaadi hadda eega imika isuusumi samada anigoo maqashii la hadlay oo la in way socotaa hawsheedan iyo magarta dadna aabahay baa aanan arkayn baa meeliga iga soo wareegay dadna wuxuu igu yiri aaba maxaa lahayd wax lahayd oo ku maqlaayo dadna waxaan ku lahaa maqasha hadda eega imika isuusumi samada loo qaadi dadna wuxuu igu daray uu igu yiri waxaad ku dartaa aabo suudi iyo waxay nagu dileen socod daraareed wax suugaan u eg aniga horta xilliyadaas ay igu horreysay qalbigayga maankayga ku soo dhacdo waan garanay markaa waxaan leeyahay inaan u hadal caadi ahayn oo gabay waan fahmay laakiin sidana aan u leeyahay xigmad kale oo rabaaniye ku socotay xilliyadaas ay igu horreysay muxsinow aad iyo aad way intaas dee inoogu filan xilligii suugaanta aad isku dayi karto inaad suugaan alifi karto iyo halkii aad ku dhalatayba weli barnaamijkeennii ayaynu kusii socon doonaaye bal waxaad ka warantaa dee waqtigan maanta la joogo ama qarnigan 21aad suugaantii waxa weeye haddii ay noqoto sidii loo curin jiray iyo sidii ay ahayd iyo saameyntii ay lahaydba intii oo dhanba waxa weeye isbeddel baa ku dhacay bal waxa weeye isbeddelka intaa leeg maxaa sababay waxaan odhan karaa muxsino waxa sababay baan odhan karaa anigu horta kow waxa ka 30 sano ka hor Soomaalidu markay waatii dawlad 60kii yeelatay dhaqankeedii berigii hore ee Soomaalidu 60kii wixii ka horreeyay dawladda iyo xukuumadda kuma helin jirin dhaqankeeda
ayadaa iska wadatay reer miyigeeda iyo guurteeda iyo geedkeeda bay ku ilaashanaysay wixii ka xumaada ay halkaasaa laga kabi jiray dowladdu markaa dhaqankay ahayd lixdankii markii la soo gaadhay dowlad baa dhalatay gumaystihii baa inaga tagay calan baa la helay madaxweynea la doortay golayaal murti iyo madadaala la helay dabeetana waxaa loo soo raray xaggii magaalada iyo dowladnimada dabeetana golayaashii murtida iyo madadalada 30kii sane hore ee 60kii ilaa iyo 90kii intii udhexaysay gacanta ku qabtay afka Soomaaliga iyo murtidiisa iyo ilaalintiisa markaa kadib waa tii colaadii sokeeye bilaabmeen 90maadkii dabeetana waa tii burburkii dowladii dhaxdhacay dabeetana waa tii Soomaalida badankeedu qaxday dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo jaarka waa tii tagtay markii dambe la soo noqdeen sida habaqlaha waa tii inaba maalin timi dowladnimadii iyo qaabkii markii hore loo dhisay waa tii inaga xumaatay ee reer waliba iyo qabiil waliba tuulihii u degi jiray ilaa annaga halkan horta baxaysanayna inta wax hagaagayaan dabeetana waxaa laga mashquulayba wixii Soomaalida ka dhaxeeyay danta guudaha wax dan guudaba Soomaali suugaanta iyo dhaqanku waa dan guud cid gaar ah male ha jiraan qaar xuriya oo Ilaahay ku ilhaamiya markuu afkooda ka soo baxo ee ay tiriyaan Soomaalida kama xigi jirin waa la laba hadduu khalad yahay waa la qaban jiray hadduu sax yahayna waa la deyn jiray waxaa jiri jirtay xilliyada qaarkood rag kabiyaaya oo Soomaaliya oo maasayahanadii ugu caansanaaya oo ilaa alaan kan afku ugu caansanaa iyagoo inta Allah u naxariisto oo la yidhi hebel gabaygu waa ka xiran marka halkaan maxaa ka xiran anshax iyo akhlaaq iyo kala dambeyn iyo nidaam markaa jiray oo Soomaalidu lahayd baa xiran isaguna uu hogaansanayo kaga mid ah maanta waxyaabaha lumay in joogin ee heer imika waxaan ku dhadhownahay qofka aan ugu oran karin waa khaldan iyo xaaladdu ma ku dhadhowday markaa burburkaasaa sabab u ahaa oo keenay oo kowka ahaa markii dambana imika waa adiga arko qabiyo qoraal midhan baa waqtiga dastuurka Soomaaliya waa qabiyo qoraal maamul goboleed dowlad ku meel gaar ah markaysa sidaas uu qabiyo yahay dhaqanka ururintiisii iyo ilaalintiisii wadi waa dowladaha iyo dhisidoodii waaba la yar asaasoonka waa tan la wadooday isaga meel ay joogaan imika koox Soomaaliyeed oo la dhaqankiina barigii uu qaxay oo duur ku galay oo isaguna deesnay meelaha ka dhacay balsna soo ururna leh wali ma dhicin marka anigu arrimo noocaas ah keenay baan qabaa muxsino aadiya marka waxa la isbedelkan ku dhacay afkii iyo dhaqankii suugaantii burburka ay dawladdu burburto kowka balwaya wax jira tix aad samaysay oo aad ololo u magac dartay bal tixdaa iyo sidee ku soo baxday ayaa hadii la hayra nasiideen waxa u sababa muxsino tixdaa sidiyaabaha dhaqan burburkaanka ay sheegayna ayba u sababa iyo waxyaabaha uu keenay oo deemka soo ifbaxayba dhaqan burburkaas waxa jiray Soomaalida berigii hore nin walba wuxuu ku wanaagsan yahay loo dirjay ninku hadduu geela raacista kuna si geela loo dirjay hadduu ariga ku wanaagsan yahay ariga loo dirjay hadduu majaajileynta iyo riwaayadda dadka inka qosbiyo ku wanaagsan yahay taasaa loo dirjay hadduu ku wanaagsan yahay hees ku luuqayo cod leeyahay saasaa loo dirjay hadduu gabiyaa dhaba yahay oo marka la tijaabiyo gabiyaa noqdana gabigiisaa loo deyn jiray qaar baa jira Soomaalida hore intay sahan gabiya markiiba tixdii gorsii labadii goreeyay ku joogsan oo isaguna is arkayba dadkina arkay marka taasaa meesha ka baxday midda kale waxyaabo imika cusub oo aniga igu soo kiciyad carta jira in baad arkaysaa in waqtigan aynu joogno gabi oranayo waan gabiyaa dad buu hor imanaya dabeetana wuxuu leeyahay tixbaan hal abuuray dabeetana madashi yimaado ee laga sugayo inuu ku tiraabo dadkina uu sidaa soo qaabiro ayuu warqad jeebka kala soo baxaya dabeetana warqadii uu saas hor qabanaya isagu warqadii uu eegayaaba ninkii dadkii warqadaas uu ka akhriyaya qalbo ku yar marganaya inuu warqad ku qoranay dabeetana hadhowna warqadii uu dhigaya qofkii dhageysanaya markuu warqadii dhigaysno wixii uu ka baxay way sidan toos ka marka dibu sheekeynaysa dira hadlaysa soo qaabisho iyo marka foorarto hadalkaagu isku sii gelima waxyaabaha soo kala aniga dacaftii u kiciyay midda kale in doodaan loo jiro gabiyaha Soomaalidu aad u taqaanaa markuu dirqi gabayga kuma fiican iyo waan darooriyay kaga dayasho door kuma noqdiyo xaraf la doondoon duxna kuma leh dheef lagu dalbiyo ugu ducee ruuxe
dardarsiintu waa u daran tahay marindayga u roon darsi ma aha la isbaro xigmadi way da'weyn tahay waa deeq ilaahay baxshiyo doobi gooniyo يعني حتى يقول عن مدينة المود يا بير مودو ذلك قاركي سدا أي سجان تو ترنيان إن إسلام برتا قبيان نقطة تتنقع نقطة قبياجي هراء وحكم ممكن جرت سجان تسعين وقبي جن عبيه أو إلى هاي ونكوي الهامية يسوي هذا سكت دين كريم دينه سنة عربي مر وكهذا اسمه هذا سجابي ويدا هنسمى هاينه هو لو هالمو يسكر وجهايره هي تايب قدرت تكون على هذا الشيء إني نعباين برا كسر لكن وح إلهي كلها مياه يهرم رئيسي يتناهم قبل سوق عين سيابها سانية تحدى نقول لي تحدى وحلا إلى هذا قلالة حنكجا حلا يا ورويش لأن ضد قرض كان معايا برضت كي ضد كائنا إلى هذا ورويه ودواء ركتاني محاط تقدم عليه ضد كان هوش النوع أنا هي قرض كاولنا إلى هذا ورهي لها ضيدا أهين قبياها الأبورة وإلهي كلها من مقادير وتمي دقن كنا هاي نقل نبرهيننا قصبنا وحن بيجيس هاينا مدرسة الله يمننا اسكداي وكون ضد ككرتيرنا يا من قرآن تنقران نقطة سيد إذا جاءك تابو مقعيو شرف والبكرة مقرأ محمد موجل ليبان بابري برماش كده جيستي اللهم حريستي لو وديه نوريا بوديه كل سودان تصامر ده حي وترتا محمد موجل وحيري سودان تصامر ده وحي وترتا ومرايد عجيبة وجوابي حر سودان هو مرايد صامر ده وحي كده ومرايد نظيفة هوي أو بلارن ميل كتيرسن صامر ده أي وضع أرتين ده هيا waxay ka eegtaa taariikhdii ay soo mareen iyo mustaqbalka dambe u socdaan labadaas ka eegan dabeetana hadduu qof si qaldan u gabiyay ama deelqaaf ku gabiyay uu gabay tiriyo qof muraayadii dhagax ku dhufto nabar u sameeyay dhigay dabeetana qofkii dambe soo maraa wuxuu leeyahay inkaar dhaga muraayadii ummadda nabar ku dhufto marka sida awgeed baan igu dhalisay suugaantu waligeed buu ismi kitaabka Maxamed Cali Kaariye ilaahay ha ku anfaco dadkan la hadlayo de kulay ummad baan la hadlayo waa iska bareeraya inuu xiga soo noqdana waa laga yaabo marka waan iska bilaabanayna nin qorano calaad leeyda waana ayaan ku hal qabsanaya marka waa sidan tix adagabay colaado haddaan ararus adagabay colaado haddaan arar qurxoonaysa iyo unug dhextaaliyo xadoo lama ilaawana amba luqalo oosta ku jirin malahaydane darab waana sheegtaa qoraal bay ku ururshaane darab waana sheegtaa qoraal bay ku ururshaane ayarum ma sheegaane wow foorariyaine ayarum ma tiriyaane wow foorariyaine midhahay alfeen bay haddana ku akhriyayaane astaan lagu dirsoociyo naxwiyo god uma eegaane hooyaal ay kuma aaminaan eraayadoodiiye geeraar ma ogaan sidii odayadii qaare muddo badan intay aamusaan aadmigoo tabaya ayaanu sidkii go'ay dabeed kuma olkeeyaane ayaanu sidkii go'ay dabeed kuma olkeeyaane waa saban ugbaadkii murtida oo loo rogaye waa saban ugbaadkii murtida oo loo rogaye jiiftadan ordayse dadkii lagu asqaysiiyey ama kaaga nimayo oo koley wayla aragtaane ama kaaga nimayo oo koley wayla aragtaane
ayaxnagu dilaaciyo hiddii waa aboor cunaye durba way ku soo oodmilay abaabadoodaasi indheer garadka maansadu hadday olola qaadaane indheer garadka maansadu hadday olola qaadaane anna way kantii badatayo shaacir baanahaye dhaqankii asluubtiyo wanaag abid ku soo waaray iriday ku goosteen dadaan sama u eegayne afka hooyo waagii horu guurtiyo ilaasha afka hooyo waagii hor uu guurtiyo ilaalsha iyo urura dhowriyo lahaa gaadh biro adage iyo urura dhowriyo lahaa gaadh biro adage soomaali afadan gashiyo kalayr dhowgeedu wuxuu looma ooyaan ka dhigay sharaf aroosna wuxuu looma ooyaan ka dhigay sharaf aroosna aad iyo aad kulley waxa weeye waa tix aad u qiimo badan tixdaa olole oo waxa weeye waana fariinta ku socotaa dadka markaa dee sugaantaan ehelka u ahayn ee sida abwaanku sheegay had iyo jeer odhanaya abwaan baan hay waxa weeye waa tix aad u qiimo badan bal tixdaa haddii aynu yar gorfayno ama aynu yar ablaablayno baydad ku jira bayd baa ku jira ad leedahay jiiftadan ordaysay dadkii lagu asqeeyey markaa adugu markaa waxaad leedahay yani markaad abwaanidii hore ka hadlayso iyo jiiftadan mabay ahaynba markaa ma waxay abwaanidii hore sameeyaan may ahayn mabay ahaynba markaa ay tixdaadu sheegaysa may ahayn muxsinow may ahayn waa caddaanba inaanay ahayn inay xid abwaanadii hore intii cabdi iidaan iyo dhoodaan ugu dambeeyeen axmed ismaaciil diriye qaasim raggaasi ay ugu dambeeyeen innaga aynu soo gaadhnay qaarkood qaasim maalin dhaweytu dhintay dhoodaan waad ogeyd dhoodaan mabuu tiri qaasimno muu tiri cabdi iidaan baa berigaa deelaydii markaasoo isaga lala soo galay oo raggii deelayda bilaabay kamid markii hore kamid ahayn laakiin markii dambe uu is yidhi ka hadal ayuu is yidhi xarafkan ay ku socotiyo jiiftadan bal kaga hadal adna inkastuu maansadii isagu uu kaga hadlay ay sax tahay haddana waxaa arkay inay godkii midha yaraatay markiiba baydgaab inay tahay dabeetana dawaabo ka sheegaya markuu midha yarii wada shuku yidhi shidaday deelay shacdii baan hayaanka u raray shaamiskeed geb deelaydii jiiftada ahayd saasuu kaga baxay gabay buu guray cidina kagama dabayn gebiga wixii markaa deelayda ku jiray oo dhani ninka dheeg la yidhaa dheeg maxamed yaasiin baa beri dambu dhintay yidhi gabaygii shacdii soo galay oo yidhi maxaa geeyadu marxuumkii sharabe sharab abraadkeeda maxaa loo shib yidhi soo sharadii mooy weli waa kida marka halkaa in shib la yidhi adkaas halkaa waa la hadhayba cabdi iidaana nin dadka reebi kara u allah u naxariisto abwaanadii lafdhabarta u ahaa xilligiisii suugaanta soomaalida ayuu ahaa arrintani may jirin soomaalidii hore may tirin jirin geeraadka istimacadoo kale waad garanaysaa arrintani waa arrin cusub waa arrinta fasaxaysa inaanu ninaan gabyaa u dhalan oo aan afka soomaaliga kala saarsaarayn oon deelqaadkii garanayn inuu warqad intuu kusoo qabta dadkii la hor yimaada yidhaa waan gabiya waa arrinta fasaxaysa markaa in laynaga xidho ayaan anagu jeclaan lahaa waa rabitaankayga bulsho badan baa jirto imika ku gabayda ama ku maansoota laguma odhan kara gabay laguma sheegi kara way ku maansoodaan marka in laynaga xidho si afkeenuna tayadiisi usoo noqoto iyo dhaqankeeni iyo hiddaheenii ummaduhu afafkooda way ilaashadaan iyo dhaqankooda iyo hiddahooda murtida iyo hal abuurka iyo waa iyaduna waa lambarwan bay afkooda soomaalidu berigi hore taariikhdeedii hore wixii lixdankii ka horreeyey ama xilliyadii wax la qoray ka horreeyey buugga ay wax ku qorataa gabaygo gebigeedu marka loo leeyahay taariikhda caynkaas iyo caynkaas iyo caynkaas ee dhacday daliilkeedii keen gabay baa la saari jiray gabay berigaa la saaray baa la sheegi jiray sidaasay ku noqon jirtay muranla marka waxyaabahaasaa muxsin oo ku jiraa oo tixdan kalifay waa isbareeray anigu iyo dee ummad badan aan la hadlayo waan garanaya wax kasta
inkastoo ay kasoo noqon diyaar mama waad mahadsantahay iyaga kasoo jawaabi dadku way ku leedahay sidoo kale waxay ku jirtaa waxaad leedahay neefku si leeyay binaadamku si leeyay marka waxaad leedahay nimankan dambe suugaanta tirinay sida taxeeda ku jirta waxaad leedahay wuxuu sidba ma lee waa waxa weeye waa hayo ayaantan uu sidki ayaanu sidkiigu ay dabeed kuma olkayaan baa kamid marka iyadoo la sugayo oo dadku leeyihiin ninkii hebelniyo bariyahan muu gabiyin dabeetana maalin sidkiisii go'ay ayuu soo baxayaa markaa la helay baa la odhanaya markaa neefku xoolaha marka dadka iyo xoolaha dhadiga markaan kasoo qaato sid biili dumarku 9 bilood bay qaadaan geelu 13 bilood buu qaadaa arigu 5 bilood buu qaadaa waa taqaanaan neefku hadduu kasoo hormaro xilligii sidka dhicis buu noqdo ama wuxuu noqdaa cabaad dheere afka xublana waa la yidhaahdaa waxaan dhamaysahay muuqda inta badan marka caan markaa gabaygu haddii uu ka horeeyo tooyigiis iyo wacyigii aad ugu tala gashay dhicis buu noqonayaa dhulku kaaga dhacayaa dhoobadu rufanayaa dabeetana markaad soo qaadana wax la dhegeysan kara ma noqonayo ila xilligiisi u weydaartay marka taasi way badan tahay waxaad moodaa inuu ninku isleeyahay hal lagu arko inaad gabayaysa ama maansoonaysa hal lagu arko laakiin waa ummadan aad la hadlaysaa ummadan aad la hadlaysaa ila ummadooda waxaan gudbinaysaa gabayga ninkan tirinaya wuu curiyey ilaahay baa ku ilhaamiyey midhiisu maskaxdiisa ka soo maxdeen hadduu male laakiin uu ka baxaysa ummad buu kula hadlayaa gabayga dee siyaabo badan baa loo marna dacar baa lagu kiciya dad baa lagu sugu tiraado marna dee nabad baa lagu dhaliya marna dee horumarkaa lagu taageero marka waxyaabahaasaa jira markaa saas ay u kaliftay waxaan leeyahay wargabiyaayow gabay badan waxba ma tare waxa tare gabay waa xiddi godkiisii haysta ma xiddi godkiisii helay kahana qaadayo godkiisa ee Soomaalina dhigteeda nooleynaya warkaa ku dadaalaan odhan lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee waxa weeye tixdaada soo jeedisay iyo fariinta aad gudbinaysay daawadayaal intaa waxaynu kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeennii Hindisi Hal Abuur oo toddobaadkan uu marti noogu haa abwaan Cabdi Dhuux Cabdi waana waxa weeye abwaan suugaan fara badan haya insha Allah marar kale ayaynu soo marti qaadi doonaa abwaanka aad iyo aad baad u mahadsantahay